ku bilaabo aragtida ku saabsan go'aamadii ka soo baxay galabta guddiga madaxweyne sida Cabdullaahi Dani uu magacaabay arinta xalinta lacagaha iyo sicir bararka oo yaabahaanba uu hadal ka taagnaa go'aamada ay soo saareen wuxuu ahaa go'aamo laga filanayay oo runtii markaan eegno guddiga aqoontooda iyo khibradooda dhaqaale guddigaas oo aad iyo aad u mahadsan oo madaxweynaha hore Puntland aana wasiirka hore maaliyadda Puntland soo noqday ku jiro sidoo kale wasiirkii maaliyadda Faarax Ali Shir ahna musharax madaxweyne ahaa dhaqaalahana in badan experts ku ahaa ama khabiir dhaqaalaha go'aamada waxa go'aamo aan filanay waxaan rabnaa aragtida ka ahaan in go'aamada aad iyo aad u soo dhaweeyo go'aamo masiiriya shacabka Puntland ay ku farxeen inay ahaayeen waxaan shacabka ka codsanayaa inay lacagahaas go'aamadaas dawladdu sida u soo saartay inay qaataan cidii kale ama go'aamadaas u hoggaansamin talaabo sharci dawladdu ay ka qaato hadda kadib waxaan u maleynayaa inaysan jiri doonin in la isugu hoos gabado oo aysan dhici doonin in la yiraahdo lacaga la qaadan waayay iyo waxba sicir barra iyo waxba dhintay dawladdu shacabkeeda waa u turtay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani guddiye kala duwan baa arrintan u saaray dhowr jeer buu arrintan xalkeeda si fiican isugu dayay talaabooyin kala duwan uu ka qaatay